السلام عليكم أصحاب توادين سلامي وصور دوادا يوتيوب channel كيغا إن فاضمو فاني أصحابي إن ما أنتوا حربا إنا دي شيغو محلها إن دقنك محلها قبلها إن reer xamarka dhaqankooda mush gabdhaha bas dhaqanka reer xamarka waxaa u naqaan anaga dadka cadcadka laakiin Soomaalida kale waxay isdhahaan dad koonfurka imaado dhan reer xamar ay u yaqaanaan laakiin dadka cadcadka reer xamar la dhahaa marka reer xamarka gabdhahooda markii la guursanayo horta maxaa la dhedheel lagu guursado oo xitaa wajigeeda gabadha markii la arkaayo lacag ayaa la bixiyaa oo dhaqan ay u tahay reer xamarka marka asxaabay ani ma ogeen laakiin sidii aan ku ogaaday ayaa idin sheegaya maalina gabar saaxiibtay waxaan dhahay nina gabar isoo weydiiyay nin fiican u ahaa gabadhiya marka aan dhahay walaal miyaha ninkaas maxaa lahay guurdoon ah waxaan rabaa inaan kugu soo xiro markaas ay ilaahay haye waayahay okay waxba kama qabo gabadhii maxaa lahay waan baray kadib telefoon ay ku wada hadleen maalinkii dambe marka waxay ku heshiyeen inay is arkaan guriga maxaa lahay hooyadeed inuu ugu imaado yani gabadha reer xamarka dhaqankooda gabadha sharaf guriga hooyadeed inuu ninka ugu imaado yani uu ku arka waa mush yani ninka inuu banaanka uu ka arko ma garteen kadib gabadhii markaas waxaan ninkii soo waday ninkii wuxuu dhahay maadaama maxal lahay aan gabadhii maxal lahay aan gurigeeda aan tagaayo oo adigina qofkii i baray adiga aad tahay waa qasab maxal lahay in adiga i raacdo oo gabadhii aan sidaas ku soo arko waan soo raacay ninkii gabadhii gurigooda imaanay marka imaanay ninkii maxal lahay fadhigaal fadhiisiyay kadib gabadhii marka maxal lahay hooyadeeda joogta iyo habarirteed iyo aniga hooyadii marka su'aal i weydiisay markaas waxay ugu dhahday ninkan rabo gabadheeda inuu arko ma u soo sheegtay in maxaa lahay waji fur in laga rabo ma u sheegtay yani lacag oo waji fur ah wajigeeda yani aragtida oo arkaayo inay lacag tahay ma u sheegtay markaasaan dhahay aniga maxaa lahay waxaan dhahay ma ogeenaan dhahay in aragtida la aragtiyo aad arki jiray dad is arkaayo oo lacag iyo waxaas waxaan lahay waligeyga ma arkin maahno markaas waxaan ku dhahay uma soo sheegin ani mana aqaano waxay dhahay marka maxaa lahay aragtida wajigeyga gabadheeda waa lacag habarta iyo hooyadii marka saas igu dhahaye gabadhi marka waxay dhahday maxaa lahay hooyo miyaha faadumo waxba kama taqaane hadda ninkiina uu joogay iska dhaafa marka maxaa lahay waan soo arkaa asagana hay arko kadib hada isfahanana waa kaas marka dhaqanka oo cajiibka ah oo subxaanallah gabadhi sidii maxaa lahay ninkii maxaa lahay ayadoo ehelkeedii jooga isku arkeen maasha Allah gabar qurux leeyahay way is caajibiyeen laakiin dhaqanka reer xamarka yani waxay wataan dhaqamada carabta oo kala dhaqan cajiib ah waaye xitaa waxa dhaqanka kale oo la yaab kale yani aan ku arkay hadda taas aragtidii koowaad waaye waxa dhici kartaba gabadha aroosada habeenka maxaa lahay oo aroosada gurigeeda la geeyo in ninkaas maxaa lahay marka taashka gabadha taashka u xiran yahay oo shawaqa wajiga u saaran yahay in ay dhahdo adigoo lacag dhiibin shabaqan maxaa lahay wajigayga ma ka qaadis wallahi sheeka cajiib ah waaye yani shabaqan maxaa lahay wajigayga kama qaadaysid adigoo maxaa lahay lacag bixinin yani wajigeeda ma feeday waa dhaqankooda oo wax ceeb ma ahan wajigeeda ma furaayo asagoo maxaa lahay gabadha lacag siinin ma garateen marka sheeka cajiib ah waaye habeenkaas oo kaleetana lacag ma habeenkaas kale loo joogaa laakiin waxa dhaqanka ah maxaa lahay wax ceeb ma ahan asxaabi sidaas idin kaga tagayaa